ciidamada dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM isgarabsanaya ayaa saaki aroortii waxa u suura gashay in ay la wareegaan deegaano hor leh oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kadib dagaal ay la galeen ururka Al-Shabaab. General Cali Caraaye Cosoble Gacmo Duule oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya sidoo kalena ka mid ahaa saraakiishii horkacisay dagaalka maanta ciidamada dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay kula wareegeen deegaano ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka waramaya meelaha ay la wareegeen. meeshaan waxa la yiraahdaa Sheekh Cali Cabdulle. meeshaan waa meeshii mudana taliye nimankii jidii jahadiidka aad u bixisay ay xoogaaga sekada ay ku sheegaan ay ku qaaday jireen. meeshaan saakay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM aan saaxiibada nahay ayaa ka howlgalay. halkan waxaa laga faramaroojiyay nimanka khawaarijta ahay oo ummadda dhibaatada ku hayay. waxaa baaritaan lagu sameeyay dhammaan eeriyooyinkan galgalato suuqa waxar cadde meeshaan hadda aan joogno oo Sheekh Cali Cabdulle dhammaan nimankii khawaarijta ahay oo meelaha ummadda ku dhibi jiray waa alxamdulillah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibadeena AMISOM oo iskaashanaya nimankii khawaarijta ahaa meeshaan farahooda laga bixiyay. dagaalkan maanta ay kula wareegeen ciidamada dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM deegaano hor leh oo ay hore uga sugnaan jireen ururka Al-Shabaab ayaan waxaan wali jirin wax war ah oo ka soo baxay dhanka ururka Al-Shabaab oo ku aadan deegaanadan maanta lagala wareegay. ciidamada dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa maalmihii dambe waxa ay wadeen qorshe guud ahaanba magaalada Muqdisho ay kaga saarayaan ururka Al-Shabaab iyadoo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho oo ururka Al-Shabaab lagala wareegay fariisimo muhiim u ahaa kuwaas oo ay ka mid yihiin xerada Maslaxa sidoo kale xaafadda suuqa xoolaha oo dhawaan ururka Al-Shabaab halkaasi laga saaray.